وبرنامجكي خول إي خورال oo aan maanta ku falanqaynayno buugga la magac baxay taariikhda dhaxalgalka ah ee madaxweyne aadan cabdulle cusmaan oo uu qalinka u qaatay qoraa maxamed ciise turunji. allahu naxariistee madaxweyne aadan cabdulle cusmaan waa qofka keliya oo siyaasi soomaali ah oo dhaafay xusuus qor, taasoo u suurageliyey qoraa turunji inuu kala soo dhex baxo xog mug weyn oo dhaxalgal ah oo uu buugga ku soo bandhigay. xusuus qorka wuxuu marxuum aadan ku xusay arrimo badan laga bilaabo yaraantiisii, dhibaatooyinka uu soo maray maadaama hooyadiisii allahu naxariistay ay dhimatay wax yar kadib dhalashadiisii, iyo aabbihiis oo asna dhaqso u geeriyooday, taasoo u horseeday inuu noqdo iskoris halgan adagna nolosha ka soo maray. si kastaba ha ahaatee casharada nolosha adag ee iskorisnimada marna hamigiisii iyo hankiisa ma jibin, balse wuxuu casharada u adeegsaday shidaal ahaan si uu nafsadiisa iyo bulshadaba ugu adeego. xilligii talyaaniga gumaystaha soomaalida uma ogoleen tacliin dugsi hoose dhaafsiisan, laakiin aadan wuxuu ahaa nin akhriska jecel oo jannaale uga soo lugaya muqdisho si uu u iibsado ama u amaahdo buugaag uu akhristo. waxaa saameyn taban ku yeeshay habdhaqanka gumaystaha faashiistaha ahaa, taasoo gubaysay damiirkiisa. waxaadba moodaa in nolosha aadan oo adkaa uu soo maray inuu alle u diyaarinayay galaangalka iyo isgadgadiska siyaasadda dalka xilliga xornimada kadibba. xilligan ayaa ahaa xilli u baahan dhabar adayg, maqaar adayg, sal culays, tanaasul, tawaaduc iyo dadkoo laysku hayo oo laysku wado. intaa dabeecadood wuxuu ku soo kasbaday duruufaha adag ee uu aadan yaraantiisii soo maray. khubarada carruurta ku takhasusa ayaa yidhaahda carruurta waalidiintoodii geeriyooda ayagoo da'yar waxay durbaba ogaadaan in nolosha dunida uu wakhtigeeda aad u gaaban yahay, taasoo ku riixda carruurta inay wakhtigooda lumin oo dadaalkoodina uu noqdo mid dheeri ah. mahmaha soomaaliyeed oo ka hadasha dabeecad wanaagga looga baahan yahay qofka siyaasiga ah ama diblomaasiga ah ayaa odhanaysa: ergo waxaa loo dirsadaa nin dhurwaacay uga adag, kudkudo gaajo uga adag, kurtun qorax uga adag, dhagax qabow uga adag. dadkii la dhaqmay ama la macaamilay u naxariistay madaxweyne aadan waxay yidhaahdaan dabeecaddaasoo dhan ama intaasoo dhan oo mahmaahdaasi ay sheegtay madaxweyne aadan wuu kulansaday oo wuxuu ahaa qof dadku ay ka heebaystaan. waxaaba qofka hadda joogana wuxuuba ka dhadhansan karaa markuu akhriyo buugga oo qoraa turunji xusuus qorkiisii ku soo bandhigay. tusaale ahaan, aadan cabdulle weligiis lacag kuma bixin in loo doorto xildhibaan, guddoomiye baarlamaan iyo madaxweyne jamhuuriyad. wuxuu soo noqday ku-xigeenka golaha xukun gaarsiinta ama territorial councilka loo yaqiinay 1953 ilaa 1954. wuxuu guddoomiyaha baarlamaanka daakhiliga ah noqday 1956 ilaa 1959. madaxweyne ku-meel gaar ahna wuxuu noqday 1960 ilaa 61. madaxweynaha jamhuuriyadda dalkana wuxuu noqday 1961 ilaa 1967. iyo in muddo ah uu ahaa guddoomiyaha ama xoghayaha guud ee xisbiga SYL. wuxuu ahaa nin ku adag go'aanada danta guud una dabacsan kuwa isaga khuseeya ama danta gaarka ah. waxaad ku arkaysaa buugga talooyin badan oo aadan cabdulle bixiyey in hoos loo dhigo kharashyada dowladda aan loo baahnayn oo ka baxo, yani kharashyada dowladda ka baxo ee aan oo micno darada ah ayuu aad talooyin badan uga dhiibi jiray. sidoo kale xaaskiisa iyo ilmihiisa uma ogoleen inay isticmaalaan gaadiidka dowladda oo shaqada madaxtooyada loogu talagalay, oo ma adeegsan jirin gaadiidka dowladda, uma adeegsan jirin reerkiisa. sidoo kale canshuurta dowladda ay ku leedahay guryaha oo gaarka u lahaa asaga si joogto ah ayuu u bixin jiray sanad walba dhammaadkiisa. sanadkii 1967 jagada madaxweynenimada
wuxuu ka tagay ka hor inta waqtigiisa aan dhammaanin uu gacanta yacni uu macnaa uu iska dhiibay inta aan waqtiga la gaarin. sidoo kale markuu jagada ka tagayna wuxuu degay beer uu ku lahaa janaale. marka arrimaha siyaasadda la xiriirana wuu isaga baxay oo beertiisa uu iska fashay. sidoo kale markuu xamar yimaadana meelaha shidaalka bensiinka laga qaato iyo bangiga iyo yacni sida dadweynaha oo kale ayuu safka u geli jiray oo macnaa uma dhaqmi jirin sida nin oo madaxweyne ahaan jiray oo kale. si nin oo bulshada rayidka ka mid ah ayuu u dhaqmi jiray. taasna waxay ku tusaysaa dabeecad wanaagiisii. sidoo kale xusuus qorka madaxweyne aadan cabdulle waxaad ka helaysaa arrimo badan oo isugu jira iska hor imaad siyaasad dhex maray xisbiga leegada iyo talyaaniga iyo xisbiga leegada dhexdoodiiba. tusaale ahaan bilowgii 1950kii marka talyaaniga yimid soomaaliya, leegada oo maamulka talyaaniga oo soomaaliya loo xil saaray afis waxay isku xumaadeen in muddo ah. waxaa isku xumaaday xisbiga SYL iyo dalka talyaaniga oo markaa loo xil saaray. waxaa dhexdhexaadiyey aadan cabdulle oo geesigelin ka helay wakiilka masar oo xamar u fadhiyey. aadan cabdulle wuxuu xisbigiisa kula taliyey in la joojiyo iska hor imaadka oo lala shaqeeyo afis ama talyaaniga haddiiba uu si buuxda ah u fulinayo balamadii uu UN-ka ka soo qaaday. habfakarkiisii halkan waxaa moodaa inuu ku aadanaa mahmaahdii oranaysay oo soomaalida ahayd xaajo war ku aado warma looma doonto. sidoo kale waxaa jiro tusaale oo khilaafaad ka dhex dhacay xisbiga SYL dhexdiisa oo ahaa 1959kii kadib doorashadii guud ee xubnaha baarlamaanka ayaa waxaa guddiga dhexe oo leegada dhexdiisa ka dhashay khilaaf ah shirweyne hala dhigo oo dadka oo dhan oo xisbiga YL ha ka soo qayb gala SYL ha ka soo qayb galaan iyo shirweyne lama dhigayo. xubnaha qaarkood ayaa ka soo horjeeday in shirweyne la qabto. aadan cabdulle waa isku keenay labadii dhinac kadib markii wuxuuna ku handaday inuu ka degi doono jagada madaxtinimada leegada oo markaas hayay. si kastaba ha ahaatee shirweynihii waa la qabtay oo madaxda leegada oo gobolada oo dhan ayaa ka soo qayb galay. shirweynahana waxaa ka soo baxay in la isku raaco tartamayaasha jagooyinka guddoomiyaha baarlamaanka iyo tan wasiirka koowaad oo prime minister. waxaa kaloo la isku raacay in aadan cabdulle loo sharaxo guddoomiyaha baarlamaanka, cabdullaahi ciisena loo sharaxo jagada wasiirka koowaad ama ra-iisul wasaaraha. ujeeddada aadan cabdulle waxay ahayd in madaxda xisbiga oo meelaha xamar ka baxsan jooga inay talo ku yeeshaan xulka dadka loo sharaxayo guddoomiye baarlamaan iyo wasiirka koowaad ama ra-iisul wasaaraha oo aan loo dhaafin inta xamar joogta keliya. taana waa uu ku guulaystay waxayna ahayd talo aad u fiican. ugu dambeyntii madaxweyne aadan xusuus qorkiisa kuma uusan koobin keliya dhacdooyinka siyaasadda, wuxuu xitaa ku xusay arrimo qoyskiisa ama gurigiisa ah. mar wuxuu qoray in xaaskiisa ay ka carootay. taana waxay ku tusaysaa inuu qofka madaxweynaha ah uu waqti badan ka daynsanayo reerkiisa dalabyada siyaasadeed awgeed. xaaskiisa aad buu u jeclaa, mar walbana way ku garab taagneed howshiisa. xitaa wuxuu ku xusay in markuu xaaskiisa doonanayay 2 maalin ayuu doon sii saarnaa isagoo hobyo ka degay kadibna gaalkacyo kaga sii lugeeyey si uu uga doonto gabadha aabbaheed oo la oran jiray muuse mataan oo ku shardiyey inuu gaalkacyo ugu yimaado. taasoo daliilo ah kalgaceylka uu u qabay xaaskiisa. runtii xaaskiisa waxay ahayd qof xilkas ah oo karti leh, runtiina garabna ku siisay dhanka siyaasadda. wuxuu kaloo xusuus qorkiisa ku xusay xilliyo ay roobka ka soo daaheen deegaanada qaarkood iyo roob filayay iyo xilliyo uu roob di'inba iyo waxyaabo badan iyo sicir bararka ka jiray dalka. wuxuu muddo 50 sano ah uu maalin walba qorayay dhacdooyinka uu la kulmo. qayb ka mid ah uu noo soo tabiyey qoraa maxamed ciise turunji, ilaahay khayr ha siiye waqtiga badan iyo juhdiga badan uu geliyey. runtii waa wax ku dayasho mudan
inuu qofka yeesho xusuus qor uu ku keydiyo dhacdooyinka nolosha gaar ahaan haldoorka bulshada hadday siyaasiyiinta ama halgamayaasha yihiin hadday siyaasiyiinta ama halgamayaashii hore ay sida madaxweyne aadan u qori lahaayeen xusuus qor xog badan oo waxtar u leh bulshada ayaa laga heli lahaa oo waxaan ka baran lahayn waxay saxeen iyo waxay qaladaad galeen taasoo anaga laftirkeena noo noqon lahayd cashar muhiim ah xitaa khubarada cilmi nafsiga waxay yiraahdaan marka uu wax ka dhex guuxayo haddii aad qorto waad nafasaysaa oo waxyaabihii ka dhex guuxayo dhan waxaad ku reebaysaa qalinka iyo qadda iyo warqadda taasoo qofka u suuragelinaysa inuu ku nafaso marka waa hurdo fiicanna wuu ku helayaa qofka maxaa yeelay wixii ka dhex guuxayay ayuu qalinka iyo qaddii ku dhaafay marka fadlan waxaan ku boorinaynaa haldoorkeena siyaasadeed iyo dadkii khudwadda ahaa inay dhaafaan xusuus qor oo ay wax walba oo ka dhex guuxaya ay xusuus qorkoodii ku reebaan si uu xog iyo taariikh ugu noqdo jiilka dambe hadduu eebbe idmo waxaan ilaahay ugu baryaynaa madaxweyne aadan cabdulla cusmaan inuu ilaahay jannada ka waraabiyo ehelkii iyo asxaabtiina samar ilaahay ka siiyo إن شاء الله تعالى وحيابه أو خبتين إلهي إنه ميزانك حسناتكيس أو كبو بارك الله فيكم ولكن مرنا ويلكن بازي حاجي بسوري iyo barnaamijkii qool iyo qoraal oo aan ku falanqaynayno buugaagta oo la qoray khuseeya bulshada Soomaaliyeed barakallahu fiikum